السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنا مرت إسلام كمان سلام يا بعد السلام. وحان أركي حلي فيديو جمعيه دو جمعيه كسورية أو شيخين وين الشيخ شبيل الدوبي أو معلمين الصومالية كبه للدمري. معلمين الشيخ وحنا كشيء وحنا يكتران وحنا كمتران، لكن وحنا ربع الشيخ أنا أشياء أنا وحنا هاي كبر صومالية كبر مسلمة هو المها ستة hoosta adiga masaajidka hoostiisa baan aniga ka shaqaysanayay oo meherad ku lahaa. Sheekh Shibilla wuxuu cambaareyn iyo dambiyada ay galeen uu aad ugu cadeeyay macallin dugsiga ugu dhow guriga saddexaad ama guriga afraad uu ku yaalo. Aniga waxaan ku dulmanahay hoostaada meesha aad kor ka qudbadeynaysid hoosteeda baan deganahay oo aan ku dulmanahay. waxaan ahay hooyo ilma haysato Nairobi waxaan u imi ilmahayga bas inuu wax iga barto. Quraan baa lagu xifdiyaa, wax baa lagu bartaa, heer baa lagu gaaraa baan maqlay. Sababtaas aan u imaaday Nairobi, sabab kale uma imaanin. Meel yar oo meherada baan 2009 bishii koobaad ilaa bishii 11aad iga kiresneed. 11 bilood kirada waxaan u bixin jiray aad heshid waxaad ku shaqaysatid si ilmahaaga wax uu cuno bas uu uga helo. sanadkaas bishii 11aad markii ayada meesha furay lacagan ku furtay oo kale markaan waayay dahabkayga maan soo furay waan iibiyay suuqan geeyay waan gaday waan ku hagaajistay balaad baan dhigay darbigeen hagaajiyay meeshii dhan hagaajiyay alaabta oo baahnaan soo gatay meeshii saasa ku furay dhowr bilood oo furana corona markuu yimi masaajidkii waa la xiray. dadka masaajidka meesha soo gali jiray meesha masaajidka ku tukada baa soo gala meesha waa dhulka hoose maadaama dhulka hoose tahay dadka ku tukada oo qof qayb kamid oo baratay un baa soo gasha. masaajidkii markii la xiray dayaa soo galayo cid ma soo galayn kiradii way nagu socotay. maxaan ku dhahaa masaajidkii markii la xiray saasi kiradii nagu socotay annagana biil la'aan noqonay oo wixii aan ka soo doonanay annagana waan weynay wixii aan bil aadankana waan weynay oo kiradii waan bixin weynay. sababta masaajidkii waa la xiray masaajidkii markii la furay haddana muddo badan ka bacdi bilo badan ka bacdi waysadii laga xiray cidba ma soo aadayso waxa soo aadaa wax yar oo kooban qofkii soo aadan intuu iska tukado iska bixin. adigu calaayad xaal sanad kale oo waxaan galnay haddana cidhiidh ah iyo biil la'aan iyo kira la'aan. alxamdulillaah hadda waxaan isdhahnay waad ka baxaysaan. bishii koobaad aan isdhahnay waa kan iskoolaadkii la furayo wax walba la furayo ayadoo aan bilaabanba dhowr bari ka harsan tahay waxaana lagu soo rogay wax aad dab saari kartaan ma jirto. wax dab aad saari kartaan ma jirto. 3 meheradood baan ku naalaa 3deeniba warqadaas loo geeyay waxaana la yiri wax aad dab saari kartaan total ma jirtaba waa la dhibsaday waxaad karinaysaan dab ma saari kartaan. warkiraana lagu leeyahay meesha maana shaqaynaynin noloshii hadda ay furfurmaysaa may ma jirtaa la dhahay. aniga waxa ii dheer dhibtaas keligay oo hooyaday waayeel guriga joogto ilmo yar guriga ii joogo baan ahay. gurigana waan soo caawiyaa meeshana waan caawiyaa. gabadhii shaqaalaha saanta ay fiirsay waxay tiri meel guri wax lagu soo karinayo guri wax laga soo qaadayo maca salaam waad mahadsantahay waan ka tagay keligay baa soo haray. qoraal baa u diray wiil walaalkay oo meesha manin jirka aan la hadlay waxaan ku walaalow aniga bishii 10keeda saas ay haysato shaqada leeyahay baa iga tagay wax ma iska karsanaya waxa la karinayo waa shaah iyo wax yar oo bariis laakiin wixii kale waan joojinay oo wax la shiilayo ama kalluun ha noqoto ama chicken ha noqoto wax allaale wax ur sameeynaya ma sameynin. markiiba aan u dacwooday arrintii buu gudbiyay warqad baa la ii keenay waxa la igu yiri bisha 1deedana meesha waad ka baxaysaa bisha 1aadna meesha wanaad ka baxdid. maxaan ku dhahay amarkiina waad qaadan weyday lacagta leedinku leeyahayna wanaad miiska soo saartid dad culimo waa la hadlay dad waayeelaan la hadlay dad waaweyn baa la hadlay ila hadlay nimanka guddiga hooyaan hay ilmahan korinaya meeshan waxa aan ku furtay xitaa qof kasta waa ogyahay markay sanad iga xirnayd oo kira aan bixinayay kira bil kasta meelaha aan ka keenayo bixinayay baan markii dambe waxaan go'aansaday lacag aan markaan arkay inaan lacag aan ku furto kala heli karin dahabkayga inaan soo furo gato war meeshan lacag baa iga gashay waan hagaajiyay alaab baan keenay wax kastaan keenay
maxaan ku dhahay walaalayaalow xir iyo lacagtii bixi iskugu kay darina wax ma karin kartid xir lacagtii bixi 3 amar oo isdul saaran ha iskugu kay darina ma qaadi karo awoodeyda ma aha hooyaanahay ilmaan haystaa waxaa la yidhi waxaa sidaa jira culimadii aan dirsaday iyo xitaa aan dhahay war guddiga hadda ay dulmayaan bal shiiku ha ogaada shiikha arrinteeda gaarsiiya maxaan ku dhahay waxaa la yidhi may arrintan waa dhammaatay waxaan rabaa shiikha inaan u sheego macallin guriga afraad ama guriga shanaad kuu jira dulmigiisa shiikha waad ka hadashay laakiin dulmiga hoostaada lagu samaynayo ya hoostaada dulmiga lagu samaynayo shiikh ma ku soo gaaray mise kuma soo gaarin shiikh hadduu ku soo gaaray kaa wax ka qabo hadduusan ku soo gaarin haddaan kuu sheegayaa gabadh Soomaali baan ahay hooyo dhalinyar baan ahay cunug baan haystaa cunugayga maxaan ku dhahay iskool ma aadin wallaahi oo billaahi oo tallaahi wiilkayga mise iskool aadin iskoolaadkiina waa furan yihiin oo waa la furay ma aadin wiilkayga iskool wallaahi oo billaahi oo tallaahi wiilkayga saaka ma quraacanin maantana had saacadda aan hadda hadlayo oo fiidiyowga aan duubayana waa 12 iyo bar qofkii sida kale u garanaya waa duhurkii oo wax yar salaadii duhur ka dhiman tahay salaadii duhur adinkii wax yar baa ka dhiman inta hadlayaa laga yaabaa hadii la adimo ilmahayga iskool ma tigin duhurkii oo ay tahayna ma quraacan waxaan ku quraacsanayna wallaahi oo billaahi oo tallaahi inaan haynin masaajid markaan maqlo dahabkayga bixin jiray weligii masaajid lacag kuma bixin ilaahay wuxuu igu ogyahay iga sareeyaa masaajid baa maanta wax loo qabanaya ama wax ka maqayn ama wax saas ka yihiin marka la dhaho dahabkayga bixin jiray maantana waxaan ku fikirayaa masaajid hadii lagu adimo agtiisa adoo maraya ma ku tukan doontaa ilaahay baa meel lagu tukado badan wadadana ku tuko laakiin masaajid hoostiisa inaan yar oo qabiil ku yimi oo qaraabays ku yimi oo kugu dulmayo oo kugu handadayo oo kuleeyahay wadanka adigu uma dhalan aniga u dhashay adigu uma dhalan aniga u dhashay ya oo maanta hadalkaygaas iga baxay aan hadlay ya laga yaabo amnigayga inuu saameeyo oo bari la xog sheegto la yiraahdo wadanka adigu uma dhalan ya ana u dhashay lagu dhaho oo maxaan ku dhahay heer kasta iyo hantidaad kasta la igaarsiiyay askar baad ku imaas haddaan xirin haddaan farayn shiikh waxaan leeyahay shiikh hoostaada culimo